waa qiso iyo dagaal cajiib ah oo dhex maray boqorka libaaxyada waa boqor gentleman iyo suldaanka lo'da duurjoogta ah waa suldaan geesi dagaalkan ayaa ka qarxay koonfurta dalka Tanzania ee qaaradda Afrika kadibna wuxuu ku faafay dhul baaxad weyn oo ku yaala dalka Tanzania halkan waxaad uga jeedaan waa suldaankii lo'da duurjoogta ah waa suldaan geesi oo iska dhicinaya ciidamo uu soo diray boqorka libaaxyada laakiin dagaalka ayaa intaan ka sii xoogaysan doona waxaana imaan doona goobta uu soo gaari doona gurmad degdeg ah oo caawin doona suldaan geesi waa aragtaan libaaxi wuxuu dusha sare ka saaran yahay suldaan geesi waa kuwaan waa yimaadeen ciidamadii dagaalka uu sii xoogaystay waxaana gadaal ka soo galay libaaxyadii waa ciidamo taageersan suldaan geesi waa suldaanka lo'da duurjoogta ah haye muuqaalkan ayaa wuxuu yahay muuqaal cajiib ah oo dunida oo dhan lala yaabay maxaa yeelay dad badan ayaa waxay u maleeyaan lo'da inay tahay fulay ama baqdo laakiin lo'da ma baqdo fulayna ma ahan waxayna lo'da ku heshiisay inay dagaal iskaga dhiciyaan libaaxyada ama boqorka libaaxyada oo ciidamo waa aragtaan dagaalku sii xoogaystay lo'dii way timid waa lo'da duurjoogta ah marka boqorka libaaxa ayaa haddaa fiirso waxa uu ka gardarnaa lo'da duurjoogta ah maxaa yeele wuxuu yidhi maalin kasta waa in ii keenaa mid ka mid ah lo'da si aan u cuno waxaana sidaas yidhi boqor gentleman taasna waxaa ka dhiidhiyey oo diiday suldaanka lo'da waa suldaan geesi halkan waxaa lagu heystaa waa suldaan geesi lo'dii difaaciladii ciidamadiisii weli waa taagan yihiin inay baxaan ma rabaan waxay ka dhicinayaan si aan loo cunin suldaan geesi libaaxyadiina waa kuwan oo ujeeda waa ciidamadii libaaxyada laakiin meesha waxaana joogin oo ka maqan iminka waa boqorkii libaaxyada boqor gentleman wuuna imaan doonaa wuxuuna cunaha ku dhigi doonaa suldaanka lo'da suldaan geesi dhulka ayaa lagu heystaa ama lo'dii waa ujeedaan madaxdeedii dhulka ayaa lagu heystaa kuwii kale waa kuwana way ka dhicinayaan waa geesiyaal laakiin ma lahan caqligii ay halmar ku weerar lahaayeen libaaxyadana waxay rabaan inay la haraan suldaan geesi waa aragtaan weli dagaalkii wuu socdaa lo'dii inay baxda ma rabto maxaa yeele waxaa laga heystaa suldaan geesi waa kaas oo aragtaa qaar ka mid a ciidamadii suldaan geesi waxay soo weerareen libaaxyadii ciidamada ay u jeedaan libaaxyada hadda suldaan geesi dhulka ku heysta waxaa soo diray boqorkooda boqorku wuu imaan doonaa waa qiso cajiib ah qisadan waa qiso dad badan ka yaabsatay suldaan geesi la leeyahay ee lo'da ah waxa uu u dhimanayo waa difaaca dadkiisa iyo dalkiisa waana lo'daas duurjoogta ah oo halkaas ka soo madmadow ah ujeedaan inay baxaan ma rabaan xaqooda ayuu u soo dhiciyey wuxuu yidhi iska dhiciya libaaxyada annagaa ka waaweyn geesaan leenahay wax ay naga qaadi karaan ma leh maantay waa aragtaan halkaasa lagu heystaa ayagana way daawanayaan inkastoo dagaalka ku jiraan haddana hal mar inay weeraraan ay iskugu tagaan ayaa wanaagsanaan lahayd laakiin ma sameynayaanoo waa aragtaan hadda suldaan geesi midaa wuxuu ku dhegan yahay afka libaaxyada ka mid a libaaxyada qaar difaac ay ku jiraan laakiin lo'da haddii hal mar weerar culus soo qaato geesaha waa hub geesahaasi waxay ka gelinayaan indhaha iyo luqunta halkaas waxaa ku baaba'aya libaaxyada sidaba hadda kahor ay sameeyeen ma aragtaan waa dagaalka wuu sii weynaan doonaa maxaa yeele lo'dii caqligii waxaa ka maqan hal mar weerar kusoo qaadi lahaa wayna cabsanayaan inay difaacaan saaxiibkooda ama suldaankooda suldaan geesi ay doonayaan laakiin ma lahan kaartadii ay hal mar weerarka ku qaadi lahaayeen bal sidee wax u dhici doonaan arka suldaan geesi waa aragtaan sankaa lagu dhegan yahay dhibkan asaa isku soo jiiday maadaama wuxuu diiday in libaaxyada maalin kasta ay cunaan mid ka mid ah lo'da duurjoogta ah wuxuuna ku waaniyey lo'dan aan weerar qaadno oo iska dhicinno libaaxyada noo barte ma naga badna ayuu yidhi laakiin dhibaatay u soo jiida maanta ma aragtaan laakiin suldaan geesi bebeen kuma dhimanaayo laakiin waxaa cajiib ah arka walaalayaal lo'dii kale way badan yihiin meeshay taagan yihiin weerar qaadi maayaan inay ka dhiciyaan waa rabaan oo suldaan geesi way jecelyihiin hadda cunuhu ku dhegaya maarta boqorkii waa yimid boqorkii waa kaas cunuhu ku dhegay dhakab waa aragtaan cunuhu ku dhegay boqor waa kaasa boqor gentleman aan hore idinkugu sheegay ee libaaxyada duurjoogta ah hogaamiye waa kana hadduu yimid wuxuu ku dhegay cunaha suldaan geesi ma aragtaan kii kale libaaxii kalena wuxuu ku dhegan yahay sanka neefta ku dhejiyey marka qafka keliya oo lo'da boqorka lo'da suldaan geesi halkaas cunaha ku dhegi kara waa boqor gentleman maxaa yeelay dhowr wuxuu cunay wuxuu yaqaanaa qaabka lo'da loo cuno duurjoogta ah laakiin weerarka wuu soo dhawaaday oo lo'da ayaa laga yaabaa inay weerar soo qaado oo libaaxyada bursato
libaaxyadii way cabsanayaan laakiin kaarta ayay ku dilayaan lo'dii hadda sida ay u jeedaan suldaan geesay naftaa ka socoto laakiin beebeen kuma dhimanayo maxaa yeelay boqorkii libaaxyada boqor gentleman ayaa waxa uu ku dhegan yahay cunahana mar haddii neefka lagu dhego naftii ayaa ka baxaysa qaar gadaal ayay rabaa inay ka cunaan laakiin arag mid wuxuu ku dhegan yahay suldaan geesay sanka oo neeftuu ku dhejiyey laakiin boqorkii libaaxyada boqor gentleman ayaa cunaha ku dhegan cunaha halkaas cunaha ah oo dhuunta dhexdeeda haddii lagugu dhego neeftaa kugu dhegaysa ma aanay nafta waxay kaaga baxaysaa si dhaqsi ah lo'da inay fiirsata ma ayn arag mid ka mid a ciidamadii libaaxyada ayaa wuxuu weeraray lo'dii laakiin way ku soo rogaal celiyeeno waxay daawanayaan qaabka loo dilayo hogaamiyahoodii waa suldaan geesay qisadan ayaa ka dhacday dalka tansaaniya haddaan mar labaad idinku celi waana koonfurta dalka tansaaniya waxaana muuqaalkan noo duubay oo naga caawiyay dhanka duubista cabdiraxmaan macalin xuseen waa weriye cabdiraxmaan macalin xuseen cabdiraxmaan maamaan oo nooga yimid UK London waxaana farsamada qayb libax ka qaatay Aljazeera News oo aragtaan waxaan idiin soo tabinaya waa anigoo ah Cumar Siisi Sombaan qisadan ayaa waxay leedahay qayb labaad qaybtan waa qaybtii hore ama qaybtii koowaad oo aan rabno inaan idiin soo bandhigno arka halkan waa mid ka mid ah lo'da kuwada ugu geesisan libaxyadii weerar ku hayaa laakiin waxaa cajiib ah weli suldaan geesi ayaa meesha lagu hayaa lo'diina tegi mayso waa aragtaan weli boqor gentleman wuxuu dhuunta ama cunaha ku dhegan yahay suldaan geesi markan wuu sii daayey wuxuu u maleeyey inuu dhintay boqorkii lo'da waa suldaan geesi laakiin wuu nool yahay taas kuma dhiman waa aragtaan waxa halkan soo taagan waa boqorkii libaaxyada boqor gentleman wuu fiiriyey lo'dii weli way nooshahay ma dhiman waxaan ku idhi saacad dhan ayay haystaan dagaalka wuu sii xoogaystay libaaxyadii kale wuxuu u diray lo'dii kale day wuxuu rabaa inuu waa la iska dhiciyey wuxuu rabaa inuu haddana cunaha ku dhego dhakab qab wuu qabtay waa halis markaan suldaan geesay dhibaato ayaa haysata lo'dii kale way ka carartay libaaxyadii kale isbursadeen dagaalkoodii dhanka kale uu ka socdaa muuqaalaan uma jeedaan cabdiraxmaan maamaan UK ayaa kaamirada kugu aadin doona laakiin arka lo'dii waa naf waa suldaankii lo'da dhedheel kuma dhimanayo boqorkii libaaxyadii iyo waxaa isku soo haray boqorkii lo'da suldaan geesay iyo boqor gentleman waa qiso cajiiba oo ka dhacday dalka Tansaaniya arka nafta ka socota lo'dii laakiin ma dhimanayso weli libaaxi wuu ku dhegan yahay cunuhu ku dhegan yahay libaaxa wax ka kaarta badan male dhiig ayaa sanka ka yimid oo aragtaan iyo afka laakiin qisada ayaa waxay tahay qiso cajiib ah oo qayb labaad leh maadaama suldaan geesi uu nool yahay waxaana weli lagu dhegan yahay cunaha waxaana ku dhegan boqor gentleman dagaalka labada dhinac dhex maray ayaa sii xoogaysan doona boqorkii libaaxa oo ujeedaan gadaal ayuu bilaabay inuu ka cuno lo'dii boqorkoodii waa geesay laakiin waxaa la yaabi doontaan lo'dii kale oo badneed oo halkan laga buriyey ayaa waxay soo wateen in ka badan 100 dibi ama 100 lo oo kale si ay u caawiyaan midka halkan looga heesto dagaalka ayaa sii xoogaysan doona waxayna badbaadin doonaan lo'da halkan lagu heesto ee boqorka u ah boqor geesay haddaba waxaa naga sugtaan muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo aad u fara badan filimkan wuxuu leeyahay qayb labaad hadda waxaan idiin soo turjunay waa qaybtii koowaad waxaana wax yar kadib arki doontaan lo kale oo boqolaal kor u dhaaftay oo weerar ku soo qaday libaaxyadii oo la bursan doono qaar laga dhaawici doono iyo dhiigga meesha daata adinkaa yaabi doona dhanka farsamada waxaa naga caawiyey cabdicasiis al-shawaari iyo Aljazeera News Soomaaliya waxaa muuqaalkan oo dhammaystiran ka heli kartaan YouTube-keena iyo Facebooka kooxda CC Sombaan dhanka kaamirada waxaa noo duubay waa cabdiraxmaan macalin xuseen UK London haddaba waa adinkoo sugta qaybta labaad ee muuqaalkan iyo dagaal ballaaran oo dhex maray labada dhinac waa lo'dii iyo libaaxyadii haddaba la socda qaybta labaad oo aad iyo aad u kulul iyo dagaalka uu sii xoogaystay insha allahu tacaala